taariikhduna barayso marka aad aragto dal walba oo soo kabanaya sidii dalkeenna oo kale marka uu hor taagan yahay go'aan masiiri ah oo doorasho horumarkiisu waxa uu ka dhashaa sida doorashadaas loo maareeyo dib u dhaciisuna wuxuu ka dhashaa sida doorashadaas loo musuqmaasuqo mana aha fikir aniga iyo musharaxiinta kaligeen aan qabno laakiin waa cilmi ayna barayso taariikhda iyo dalalka soo maray dhibaatooyinkaas sidii aan horay u sheegay markii aan xukunka joogay oo aan ra'iisul wasaaraha ahaa waxaan idhi haddii aanay soomaalidu ku heshiin nidaamka doorashada madaxtinimada dalka ka hor inta aysan doorashadu dhicin kuma heshiin doonaan natiijada ka soo baxda doorashada iyo guud ahaan wadaagga dowladnimada dalka haddii marka la isku dayo ama ay dhacdo doorasho aan heshiis lagu ahayn waxaan hubaa inay ka dhalan doonaan dhibaatooyin badan caawa marka ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego waxa ka halaabaya haddii dalkan doorasho loo dhan yahay aan laga qaban waxaan rabaa caawa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego markaan ra'iisul wasaare ahaa meeshii aan ka digayay halkaan ay ahayd meeshii aan ka digayay oo aan xukunka uga soo tagay halkaan ay ahayd waxaan rabaa marka inaad si fiican u dhagaysataan waxa aan qarka u saarannahay inay naga halaabaan kow haddii la qabto doorasho aan wadan ogol ku dhicin waxaa ka dhalan doonta dalka dowlad aan la isla ogolayn dowlad aan la isla ogolayna waxay dhalisaa siyaasad khalkhal dhalisa siyaasad khalkhal dhalisana waxay dumisaa dal ee dal ma dhisto labo haddii la isku dayo in dalka laga qabto doorasho aan la wada ogolayn waxaa ka dhalanaysaa amni darro sida maanta aad u jeedaan waxa ka taagan gedo xaaladda ka taagan beledweyne iyo caawa wixii ka dhacay magaalada muqdisho degmadeeda kaaraan maxaa ka halaabaya dowlad goboleedyadii qodobka saddexaad maxaa ka halaabaya dowlad goboleedyadii walaalahay ka hadlaayeen iga horreeyey waxay dhaawacaysaa xasiloonida dowlad goboleedyada nugul oo mar dhow la soo dhisay oo weli hana qaada haddii lagu khasbo doorasho aan dadka ka soo jeeda isla ogolayn waxay keenaysaa in dowlad goboleedyadaasi aanay ka harin doorashada lafteeda taasoo keenaysa dibadhac weyn gobollo Soomaaliyeedna u keenaysa maxaa halaabaya haddii dalka doorashadiisa lagu heshiin waayo qodobka afraad waxaa halaabaya in ganacsiga dalka uu hoos u dhaco haddii ganacsiga dalka hoos u dhacana waxay saameynaysaa qof walba Soomaaliyeed oo sida murashaxiintu ay sheegeen hantida dadka Soomaaliyeed iyagu ay soo dhinteen oo ay dhibaatadan ku sameeyeen ay tahay waajib inaan anagu u badbaadino qodobka shanaad haddii uu ganacsigu hoos u dhaco waxay keenaysaa in dakhliga dawladdu hoos u dhacdo in canshuurta la bixinayo ay yaraato oo qasnada dawladda dhaqaalihii ku dhacayay ay hoos u dhacaan taasoo keenaysa qodobkeeda shanaad oo ah in shaqaalihii mushaar la siin waayo ciidankiina mushaar la siin waayo dawladdu adeeg ay bixin weyso taasna waa fahmi kartaan dhibaatada ka dhalanaysa soo maaha arrinka lixaad waxay tahay dalkani waxa uu ku nool yahay taageero dhaqaale oo uu ka helo beesha caalamka taageeradaas dhaqaale oo beesha caalamka dalkani uu ka helo
doorashada caawa lagu muransan yahay awgeed ayaa dalal ka mida beesha caalamku ay u joojiyeen lacagtii dawladda lagu kaalmeyn jiray in la soo furana waxaa laga yaabaa inay sanado qaadato number 7 si dalka looga xoreeyo cadowga hortaagan dawladda Soomaaliyeed ciidankeedu waxay taageero uga baahan yihiin dalal ka mid ah beesha caalamka oo qalab iyo dhaqaale ku bixiya doorashada lagu muransan yahay awgeed ayaa la joojiyay qaar ka mid ah caawinaadii ciidanka la siin jiray waa in la idin sheegaa waxa dalkiina ka socda dalalka taageera Soomaaliya oo dhaqaalaha ku bixiya waxay dhaqaalahooda ka soo qaadaan canshuur ay bixiyeen dad iyaga soo doortay oo ay matalaan lagama yaabo inay marka dhaqaale intay dunidu soo qaado ka soo qaado dadkoodii canshuur ay bixiyaan ay siiyaan dawlad ku dhalatay doorasho aan la isla ogolayn soo islama fahamsan qodobka 10aad maadaama dad badan oo Soomaaliyeed ay arkayeen hami iyo diino iyo kuwa ajnabiya intuba waxay haminayeen inay dalka maalgashi ku sameeyaan dalna in maalgashi lagu sameeyo waxa laga eegaa deganaanta siyaasadeed gaar ahaan xilliga kala guurka iyo marka doorasho dhacayso fursad u imaan lahayd dadka Soomaaliyeed ayaa sidaas daraadeed waxa ka hortaagan caqabadan hadda oo ay tahay khasab inay dadka Soomaaliyeed fahmaan waxa ay ka hadlaynayso kooyo toban dunidu sidee u aragtaa Soomaaliya 30 sano dalkan wax badan baa ka soo halaabay waa la soo dadaalay wax badan baa la soo qabtay cid soo qabatayba waxyaabaha ugu waaweyn oo taariikhdeena ku jira waxay tahay si kasta oo Soomaaliya dhibaato uga jirto afartii sanaba waxa ka dhacda doorasho qor isu dhiib ah xukunka la isku wareejiyo taasoo naga hormarisay dalal badan oo Afrikaan ah tiina hal ay u muuqataa haddii aan wax laga qaban inay taariikhdeena dhibaato u keenayso 12 dawladnimada waxay ku tiirsan dawladnimada waxay ku tiirsan tahay tiir la yiraahdo rajada shacabka Soomaaliyeed tiirkaas la yiraahdo rajada shacabka waxa laga yaabaa in dhibaato la soo maro oo la dul qaato laakiin hal meel ayaan la isugu dul qaadan waa marka doorashada la soo gaaro haddii marka arrinkaas isaga ah aan laga fiirsan waxay keenaysaa in rajadii shacabku ay baabado baaba'ada rajada shacabkana waxay ka turjumaysaa dawlad naga halawda oo dhalisa qaranjab iyo qabjab si marka aan u xaqiijino mustaqbalka iyo diilada shacabka Soomaaliyeed fursad aan u siino dhalinyarada Soomaaliyeed uga faa'iideysano kartidooda iyo dadaalkooda dalkan iyagu ay leeyihiin ay ugu adeegaan mustaqbalkoodu waxa uu ku xiran yahay inay fahmi karaan inay iyaga laftoodu rajo leeyihiin la dooran karo waxna ay dooran karaan sidaas daraadeed ayaa qof waliba oo naga mid ah halkan jooga ay mas'uul ka tahay inay ka shaqeyso dalkan in si nabad ah loogu soo dabaalo doorasho inay ka dhacdo xalaal ah la isla ogol yahay waxaan rabaa markii inaan idhaahdo xukunku waa qoro isu dhiib qofba mar ayuu joogaa laakiin qof walba oo Soomaaliyeed waxa la rabaa dalka inuu u turo cidda ugu horeysa oo la rabo inay dalka u turto waa cidda markaas xukunka joogta turitaankaas marka
waxaa la rabaa haddii loo turi waayo inaan xasuusino in loo tago waxaan rabaa marka inaan idhaahdo doodii halkan aan caawa ka soo jeedinay waxay ka turjumaysaa waxa dalkan ka halaabi kara intay leegyihiin qof walboo Soomaaliyeed oo doodan dhageysata waxaa la rabaa inay ku qanci karto ama nagala doodi karto waxaana diyaar u nahay in laga doodo haddaad maqasheen nin abwaanuhu yidhi duni aad ka tahay boqor ha ka noqon qof dayra ah dahab baad ku dhalatee sidii maar ha doorsoomin